kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janaalka wararka Burdera Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe inoo saar. qodobada wararka aan maanta idiin haynana waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo Amisom kala hadlay la dagaalanka Al-Shabaab, maamulka Shabeellaha Dhexe oo baaq ka soo saaray wadada isku xirta Muqdisho iyo Warshiiq, maxaabiis loo wareejiyay xabsiga cusub ee Muqdisho, ciidamada dawladda oo howlgalka wada deegaano ka tirsan gobolka Gedo. intaasi waxay ahayn qodobada aan hayno kuwada ugu door karoonaa. haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan. haddii aan ku bilowno, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Amisom kala hadlay la dagaalanka Al-Shabaab. wakiilka gaarka ee Afrika u qaabilsan Soomaaliya ahna madaxa howlgalka Amisom Francisco Mandera ayaa la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo kala hadlay doorka Amisom ka ciyaarayso xasilinta Soomaaliya kadib markii dhawaan howlgalka Amisom ee Soomaaliya waqti kordhin loo sameeyay. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa bishii hore dabayaaqadeedii qaatay go'aanka ah 2472 kaas oo waqti kordhin loogu sameeyay howlgalka Amisom, waxaana golaha ammaanku ay ansixiyeen in 1000 askari laga dhimo tirada Amisom ee ka howlgala Soomaaliya si waafaqsan qorshaha kumeel gaarka ee Soomaaliya oo si tartiib ah loogu wareejiyo mas'uuliyadda amniga ciidanka qaranka Soomaaliyeed. sidoo kale madaxweyne Farmaajo iyo Danjire Mandera ayaa ka wada hadlay horumarka laga gaaray qaybaha amniga, gaar ahaan waxay si aad ah diiradda u saareen deegaanadii dhawaan ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya Amisom ee Sabiidiya Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. ugu dambeyntii, wakiilka gaarka ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francisco Mandera ayaa sheegay inay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa Amisom. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa baaq ka soo saaray wadada isku xirta Muqdisho iyo Warshiiq. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka, gaar ahaan siyaasiyiinta, culumadiinka, dhalinyarada, aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Warshiiq, inay ka qayb qaataan dib u dhiska wadada xiriirisa Muqdisho iyo degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo bacaad aad u badan uu fadhiyo, taas oo wax ka tiri doonta isku socodka dadka iyo gaadiidka. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa ugu baaqay bulshada ku nool degmada Warshiiq inay gacmaha isqabsadaan ayna u soo jeestaan horumarka gobolka, gaar ahaan degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. gudoomiyaha degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Axmed Xamashiidka ayaa ballan qaaday inuu wax ka qabanayo arrimaha ammaanka degmada. gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir Axmed Xasan Cadow Axmed Daaci oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta, odayaasha iyo waxgaradka ku nool gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan shacabka ku nool degmada Warshiiq, inay ka shaqeeyaan horumarka degmada, gaar ahaan dhinacyada ammaanka degmada Warshiiq iyo deegaanada hoos yimaada oo mararka qaar la sheegay inay dadka ku waxyeelayaan maleeshiyaad. maxaabiis ayaa loo wareejiyay xabsiga cusub ee Muqdisho. taliska booliska Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta tiro maxaabiis ah oo ku xidhneed xabsiga dhexe ee Muqdisho waxa ay wareejiyeen xabsiga weyn ee dhawaan laga dhisay duleedka koonfureed ee magaalada Muqdisho. waa markii ugu horeysay oo xabsigaas dad lagu xiro tan iyo markii la dhisay, waxaana maanta la geeyay 58 maxbuus kuwaas oo laga wareejiyay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. goobta wareejinta ayaa waxaa ku sugnaa xeer ilaaliyaha qaranka, taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Riisow iyo mas'uuliyiin kale. ciidamada dawladda ayaa howlgal ka wada deegaano ka tirsan gobolka Gedo. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ururkooda 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ayaa howlgallo baaxad leh ka wada deegaano ka tirsan magaalada Baardheer ee gobolka Gedo. howlgalladan ayaa saraakiisha hogaaminaysa waxa ay sheegeen inay kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo oo ay hore ugu sugnaayeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. taliyaha ururka 49aad guutada 10aad qaybtiisa 43aad Dhame Cali Maxamed Xasan ayaa sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka saareen deegaano ka tirsan degmada Baardheer ee dhinaca webiga. wuxuu sheegay taliyuhu in howlgalladan ay socdeen ilaa 10kii dambe ee bisha Ramadaan, iyagoo shabaab ka saaray 35 kilomitir oo square ah halkaas oo ay maamuli jireen. howlgalka ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxa ay sheegeen inuu si isku mid ah uga socdo gobolada dalka oo dhan.
waxaana horay ugu dhawaaqay madaxda ugu sarreysa dalka kaas oo haatan maraya meel wanaagsan. guud ahaan war wixii dalka ee daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen Burdere Media waa naga intaas. ciddii warkeenu seego waxay dib kaga daalacan kartaa barta YouTube-ka aan ku leenahay ee Burdere Media. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay daafaha caalamka. idina waad ku mahadsantihiin daawashada warkayna maanta.